Soomaalida maanta Soomaalinimada guraaya ee carruurta yar wax ka dhaadhicinaya xalay gaarigay waxaad ku qorteen trade FU waxaas dhan hiidkayda gaar laakiin hal mid baa idin sheegaya godob aad gasheen baa jira oo Soomaalida aad ka gasheen way ma taqaanaan fanaanka kaliya maanta garab istaagana aniga by the way your name from now is Yaqoob Farey. Yes, from Soomaalinimada wax ka macaan ma laha laakiin dad badan oo Soomaalinimada ku gabadaa jiro annaga qori dab oo meel lagu shito ma noqon karno calanka buluuga naga dhaxeeyo calanka buluuga aan wada ilaashana aysan ahayn Soomaha shanta sano la soo dhaafay aniga idinkan baa idin codeynay waxaan idinku codeynayna Soomaalinimadeed laakiin Soomaalinimada idinka ka leexday Soomaali haddii kala baxdo calankaas noqonaya aniga he's on a level way haddan ku leeyahay aniga waa tahay ololihii doorashada ee ka socday magaalada Minneapolis ee loogu tartamayay duqa magaalada Minneapolis ayaa maanta si wada jira waxa shir jaraa'id u qabtay duqa magaalada Minneapolis isla markaana musharaxa duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo fanaanka weyn ee sida weyn loo yaqaano ee masraxyada markuu u yimaado si gaar ah looga dareemo waa boqorka shanta Soomaaliyeed waa ilka Casaqays ayaa isagu maanta si cad u taageeray waxa uu si qoto dheer uga hadlay sababta uu u taageeray iyo baahida keentay in Jacob Frey uu mar saddexaad noqdo duqa magaalada Minneapolis waxa uu halkan kala hadlay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaba maadaama doorasho lagu jiro qof walba fikirkiisa iyo codkiisa iyo go'aankiisa ayuu xor u yahay. Assalaamu alaykum shanta Soomaali meel walba joogtaan 114 quraanka cadadiisa aan ku salaamay waxa weey maanta waxa la joogaa meeyarka duqa magaalada hadda asaga ah برينا سان نقولنا إن شاء الله بإذن الله الكريم كقدم بينا سان نقولنا وإنه واي ونقولنا متقنا Soomaali nimada wax ka macaan ma laha laakiin dad badan oo Soomaali nimada ku gabadaa jiro walaalayaal Soomaalida xarashan la hadlaya annaga qori dab oo meel lagu shito ma noqon karno calanka buluuga naga dhaxeeyo calanka buluuga aan wada ilaashana aysan ahayn Soomaha shanta sano la soo dhaafay aniga idinkan baa idin codeynay waxaan idinku codeynayna Soomaalinimadeed laakiin Soomaalinimada idinka ka leexdeen hal mid baa maanta idinkeedii banaan Soomaalida waxaan la hadlayaa qabyaaladu dilootay ee qalbiga ee xun ee u malaya dadka dhan inay doqomay yihiin ayaga kale ee aqliga meeran ay yihiin walaal qof ka aqli badan ma jira Soomaali waa hal Soomaalina wada simantahay cadaan iyo madow Allah subhanahu wa ta'ala waa u simanahay laakiin hal mid baa idin sheegaya godob aad gasheen baa jira oo Soomaalida aad ka gasheen godobta iyada waxaan ilma adeerayaalow waliba odayaasha qaar iska dhiga dad fiican meel walba jooga ee dad xalaal iska dhigay afar qof oo Soomaaliya oo ay kamid tahay gabadhii Soomaaliyeed ee ka tartamaysay degmada Waartu ama xaafadda Waartu Yusra Arab gabadhaas Umar Faatax waa uu ka hiliyay waxa uu ka raacay gabar madow ah sidoo kale waxa uu sheegay ilka case inuu ka raacay Ismaan Cirro gabar cadaan ah oo isaguna ahaa wiil Soomaaliyeed isla markaana u tartamayay aqalka sare ee baarlamaanka sidoo kale Nasri Warsame dhammaan ay dadka Soomaaliyeed ay wada og yihiin halkii uu ka raacay Aisha Jugtay oo iyaduna ahayd xaafadda Waarten sidoo kalena Eji Cawad ama Cabdisamad oo la tartamayay duqa magaalada Minneapolis kalkii hore ee tartanka uu jiray in Eji Cawad uu Umar Faatax ka hiliyay ugana hiliyay isla meeyarka maanta tartamaya waxaan leeyahay walaalayaal wiilka la yiraahdo Nasri Maxamed waa taqaan Nasri Warsame waa taqaan Soomaa ninka asaga godob baad ka gasheen shalay qof baad uga helayseen ajnabi ah idinku raali gelinta soo istaagteen maanta waxa leedahay Soomaalinimo ku dagaaltameena ninkan waxaan ku dooranaa caruurtayda iskuulka ninka u dayactiraya waa ninka safety-gooda ilaalin doona waa ninkan waay asaga wax walba uu sheegay maanta ku taageersanahay ninku dhahay maanta booliiska kulli haaf inta maanta joogto haafkooda baan cunaya war soo musaas muu dhihin waxyaalo badan oo khaldan u dhaha jira Soomaha ma aha qofka inaan qabiil ku taageero ما فهمتين شرع النصر مركز الهريدة Soomaali nimadu ma jirin miya Soomaali nimada sharax xagee joogtay shal markaan qeylina aan guleen war wiilka walaalkeen weey war Soomaali weey ma xadeeysan reer hebel weey kursiga ku faraysa meeshan waan ka qaxaynaa salaam alaykum hal qudara doofaarka ficlaan baa loo cadaabaa baa la yiri doofaarka ficlaan baa loo cadaabaa niyo dhageystayaal mid baa idin sheegaya wax iga galay ma laha shalay hadan ku codeey darad ku codeey tii koorsan aan ku codeey garabkaada aan ahaa walaalkay aad ahayd walaal maalin walba xaq darro kugu ma garab istaagayo kan bay matala maanta
Soomaali kasta koobna maanta calankaasaan ka hay mujeedan calanka Soomaali haday kala baxdo calankaasaan noqonaya aniga he's on a level way hadan ku leeyahay aniga maanta ninka aniga wadankayga wax walba oo diyaar u yahay garab istaagay ninkaas aniga maanta xukumayo ninkaas hogaaminayo ninkaas garab u noqonayo Soomaalida maanta Soomaalinimada guraaya carruurta yar wax ka dhaadhicinayo xalay gaarigay waxaad ku qorteen trailer fu waxaas dhan hiidkayda gaaray why ma taqaanaan fanaanka kaliya maanta garab istaagana aniga by the way your name from now is Yaqub Ferey. Yaqub Ferey. Yes. From now your name is Yaqub Ferey. Somalia noolaato and mayor kenan oo garab istaagayna maanta waxa intuu xiddig loo kaca xaq darrada waliga Allah qof walba bini aadan adduunka intuu joogay qofka ugu badan 100 sano nool yahay Soomaa wax ma idin leeyahay qof walba markuu dhinto amalkiisu godka la galaya ama beentay baa walaalayaal xaq darrada joojiya cadaaladda aan u wada sinaano laakiin maanta hadii la yiraahdo qof walba uu dhahooniyo aniga Soomaali ma aha liyo coday marka uu codeynana bari ka maalin markay wax soo baxan qofka ku dhahay Soomaali ma in adeerkiis wallahi inay ugu dhacdo rabbul kaaba wallahi weysan qabaay markay wax soo baxan qofka in adeerkiisu aadaya Soomaalinimada xagee aaday 5 sano inta ku jirnay oo dul qaadan mayno qof ka aqli badan ma jiro laakiin meeshan Soomaalinimo iyo walaalnimo jirta inaad raadiyaad ma idin salaamaya Soomaali meel baa joogtaan Soomaalida community xaraashan la hadlaya dadka qabyaaladu ka buuxda ma ilma adeerayaalow ninkaas wiilkaas Yaqub Ferey ila soo dhisa insha Allah bidmillah kariim uu guuleysan doonaa mar walba cadaaladda reyn doonta insha Allah marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed cadaaladda jecel Yaqub aanu u codeeno insha Allah bidmillah kariim iskuuladu noo dhisi doonaa horeyna uu dhisay waxyaalo badan oo qabtaa jiro carruurteenu kulli waad aragteen oo male bridge hoostooda ay fadhiyaan waxbaan ka bedelayaa buu dhahay waad fahanteen Soomaa qabyaalada wax taraysan anaga Soomaaliya dhisan leen oo laamiye iyo dawlad ka dhisan leen qabyaalad baa halkan keentay wax qabyaalo oo shaqeynayna ma laha taasna dad baa wax ku cuni jiray waa dhamaatay waxa kale ta iskuulada waxa kale ta safety-ga carruurta booliiska wuxuu dhahay waan kordhinayaa buu dhahay waxyaalo badan baan ka bedelayaa oo aan u codeena taageerahayga iyo dhammaan Soomaalida waxaan ka codsanayaa in Yaqub loo codeeyo I love you so much guuleysta insha Allah doorashada waa bari 8 bay bilaamaysa 8 in the morning 8 pm bay dhamaanaysaa marka waxa weeye qof walba fursad baa haysataa Abdullahi kala noqdo bari waa talaado waana ugu dambeyntii weeye insha Allah bidmillah kariim waxaan rajeynayaa inaad qof walba gurigiisa ka soo baxo oo Yaqub gurub istaago oo codeeyo insha Allah bidmillah kariim hadii Soomaalinimo la rabo weeye dad isku duwan weeye qof ka laan dheeraysan qof u hanjabi kariyo qof u goodin kariyo qof ka aqli badan ma jira Soomaali waa hal ninkan wiilkan baan dooranay asagana u codeyn doonaa insha Allah bidmillah kariim guriyaha laga soo baxo hal loo codeeyo let's vote Assalamu alaykum Maagayga wa Yaqub Farid Mahat Senate to my friend Ilkase Thank you. You are a great leader you are a lion you have the courage to speak truth and you have the courage to push back on the grain. I know that is not an easy thing to do. This is the work that we are trying to do right now to improve our city, to come together. We do not need more division. We need people uniting regardless of where they are from or who their parents are. In Minneapolis, we care deeply about our Somali community, our whole Somali community. Regardless of past, regardless of tribe, here in Minneapolis, we are one people. We love you, and we are honored to have you here because you make our city a better place. When I first moved out to Minneapolis, I knew very few people. I didn't have family nor friends. The Somali community was the first people to embrace me. It was when I was 10 years old, running around Northern Virginia, that I first met Abdi Bile. And when I was running with him, he told me something. He said, it is not important how fast you go. It is only important that you go with purpose. These are words that I've remembered since I was 10 years old and words that I live by today. We have a great opportunity here in Minneapolis if we come together.
The Somali community have been partners. You all have been friends. You all have been walalayala, brothers and sisters. We've done great things together. We've built more affordable housing. We've helped out our seniors. We have instituted the call to prayer in Adan 5 times a day, the first Doka Magalada in the entire country to do so. And we want to continue this work together, not just to win a political election tomorrow. We want to continue that partnership thereafter. We want to unite the Somali community. We want to unite the whole city. Wow, that's nice. We can do it together. And whether it's around safety and security, amniga, or it's around the work of housing and making sure that everybody has a foundation of a home from which they can rise. We go hand in hand facing the world around the toughest issues that could possibly be out there. And we do it not through hate, but through love. We do it not through despair, but through hope. We do it not through division, but through unity. We have an opportunity to unite both tomorrow at the polls, but also in the days and weeks and years to come. So let's work together. We can do it. Inshallah.